maanta waxaa miiska inoo saaran musalsal cusub kaasoo mar dhow soo baxay caalamkana madaxa ka haysta macnaha magaciisa waxaa lagu magacaabaa Safdegim Sensin. Sheekadiisa waxay u muuqatay mid aad u wanaagsan. Asalkii waxaa loogu talagalay filim, balse markii la arkay sida dadku xiiseynayaan ayaa waxaa laga dhigay taxane. Xitaa xalqadiisa ay kooban yihiin, yacni short series oo kale, yacni taxane gaaban. Waa sida la sheegayay, yacni si ay hadda sheegay maahayaa. Marka waxaa la sheegay kadib in haddana uu sii furfuri doono. Waxaa wareegaysay miyuu dhammaan doonaa mise ma dhammaan doono. taasna kaga boga muuqaalkani maanta. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, subscribe dhaho. Haddii aad naga mid tahayna muuqaalka like saaro, yacni noo qurxiyo. Aynu gudagalna muuqaalkeena marka. Taxanahani sidiisa baan horta sheekadiisa markaynu soo koobno, sheekadiisa waxay ka dhigan tahay mise waxay tahay xataa sheekadiisa waxay ku saabsan tahay gabar yar oo Dajalaal la dhaho. Waxay ku kortay baadiyaha, waxayna ku kortay nolol aad u adag. mar walbana waxaa qaab mas dhibaato ku hay walaalaheeda ay dala dhashtay oo laba ah. Ugu dambeyn waxaa ka soo badbaadi doona dhibkaasi ay ku jirtay Erkan, kaasoo adana dhex keeni doona dhibaato kale weliba magaalada Istanbul dhex keeni doona weliba dhib markaasi uu bilaabo doona markii ay Istanbul cagta soo dhigto. Erkan iyo familkiisa isku fahmi weynayaan in gabadhan ay guriga joogto oo familkii asiga ay isfahmi weynayaan maadaama ayada ay faqiir tahay. haddana familka kaaga sii daran bay u doonayeen in gabar kale oo taajirada ay ku daraan weliba ganacsi awgeeda. Marka sheekada guud waaba intaa, waxaana loo daawanayaa sida ay ku xalinayaan dhibaatooyinka soo dhex marayo iyo sida maaragtay ay uga bixi doonaan marka si dambeyso dhibaatada soo baxayso xalinteeda. marba haddii musalka uu si yahay inta badan musalada noocaasi wuxuu noqdaa hal season oo kaliya. laakiin warka la isla dhex maray oo ah in xalqada afraad oo ku dhamaan doono midaasi waa been. xalqada shanaad xitaa kuma dhamaanayo, kulli dhamaadkiisa hadda lama sheegin, waana labadii doonaa intii uu soconayo mise intii sheekadiisa ay ka xumaanayso. marka hadda waxaan u jeesanaynaa falanqeynta xalqadaha soo socda maadaama 1 ilaa 3 aad daawateen. hadda falanqeynta waxaan ka bilaabayaa xalqada afraad taasoo aan weli soo bixin. dhanka Turkiga way ka soo baxday laakiin waxay ka soo bixin dhanka Soomaalida. marka waxaan isku darayaa xalqada afraad iyo shanaad falanqeyntooda. haddii muuqaalkan si dheeraadana waxaa laga yaabaa in xalqada afraad ku ekeeyo falanqeynteeda, midda shanaadna komitiga ay ugu reebi kartaan haddii aan ka tagay. goosgooska afraad waxa uu muujinayaa in Jifan uu hayo sir dhab ahaantii bedeli karta masiirka Erkan, soo gabagabi kartana badbaadada Dajla, dhulka la gali kartana sumcadda Erkan. waxaan filayaa marka ninka inuu sanan yar ahayn indhaas fiican ugu haya dadka daawada fahmi kara. ninkan waa jiraan dad badan oo taageeraysa jeclahay, annaha iga reebina waa ku jirayaa. ninkaas waxa ku soo bartay Salaaxudiin. teeda kale hadda wuxuu gacanta ku hayaa sir aad u muhiim ah. waxaanu ogaaday in guurkaba uusan hadda jirin oo la furi rabo walaashiisa. xalqadii ugu dambeysay ee saddexaad waxay muujinaysaa in ay u sheegayso gabadha shaqaalada ah in guurka mar horeba ma aragtay laga saxiixay waraaqada furiinka ayadoo ogeen weliba suul ahaan looga saxiixay. waxa uu doonayo in uu sameeyo Jifan waa in uu fashiliyo mise uu doonayo in uu shaaciyo in Erkan iyo Dajla aysan ahayn guurkooda mid dhab ah. maxaa ka dhalan kara haddii sir noocaasi dibadda loo soo saaro? waxaa isbaystay Nilufeera iyo Jifan. Jifanna wuxuu Nilufeera u sheegayaa in Dajla ay ka soo carartay dil sharafeed. ayadana waxay doonaysaa markaa inay warbaahinta ku faafiso si ay u dareensiiso saaxiib weyn qoyska Altul ama qoyska uu ka soo jeedo Erkan, isla markiina ay guriga si degdeg uga saaraan Dajla. saameynta weyn ku yeelan karta Erkan waa in ay meeshaasi sharaftiisa ku dhiman doonto, ganacsiyo waaweynna ay ku khasaari doonaan, waana mar walba sababta uga cabsanayo Isad ama aabaha Erkan. dhanka sharcigana waxa uu ku mutaysan karaa xabsi maadaama uu soo kaxaystay gabar weliba isagoo si sharci u soo guursan weliba magaalkeedana ka keensaday. dhanka gurigana haddii ay sirta faafto hooyada Erkan ee Enji, markaa waxay cadaadis saari doontaa mise dhibaatooyin u geysan doontaa Dajla. markaas ayaan waagi u bari doonaa. Enjina waxay markaasi go'aan ku qaadanaysaa in musiibada gurigeeda ka dhex socda ee dibadda isaga saarto. su-aashaan aad ka weydiinayaa Enjida naftarkeeda lugba u laabanay waxa ay samaysay mise waxa ay maaragtay qorsheynayso. qofkii fahmay dhanka komitigahan ugu reebo. haddii arrintu ay sidaa noqoto sirtan ay dibaddu baxdo saas waxa isugu qasmaan xeerka iyo fandhaalka kala dhacay waxa isku soo celin doona hal qof oo keliya. waaba haddii ay sheekada saas noqoto waa eedada Dajla Sultana. ayad xog badan kama bixinayo, haddii aad doonaysana si gooni baan muuqaal uga soo diyaarinayaa. marka iyada ayaa noqon doonta badbaadiyaha qarsoon ee Dajla. markaan idin soo dulmaro xalqadii ugu dambeysay saddexaad, waxa ugu weyn ka dhaca waa in Nilufeera ay ogaatay ninka iska dhigayo inuu yahay darawal oosan ahaynba. Jifanna waxa uu ogaaday in guurkaba uu mar dhow soo gabagabi doono oo furiinkaba dhanka gabadha laga saxiixay. waxaa kaloo dhacay in Jifan uu soo dhexgalay qoyska
xalaqadan wax ku dhacana waxaa ka daran xalaqada kala soo socota wax ka dhex dhici doona. Marka intaan ka kulmeen muuqaalkiisa xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe dhaho, gambaleelkan u furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo dhigayno mar kasta iyo waqti kasta. Haddii aadna hore nooga mid ahaydna waxaad samaysaa kaliya muuqaalka like saaro, qurxiso, si shargalin asxaabtaada u share garay si ay u ogaadaan in ay jirto madal aynu ku falanqeyno kuna baashaalno wixii aynu soo daawanay iyo wixii aynu daawan doono. Marka waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.